Soo dhawaada asxaabta, maanta waxaynu ka hadlaynaa sida loo kala qaybiyo hard diskiga kombiyuutarka kugu jira ama waxa la dhaho partition ayaynu ka hadlaynaa. Partition-ka sidee ayaa loo samaystaa? Muxuu yahay partition-ku waxa weeyaan kala qaybinta hard diskigaaga adigoo kala qaybinaya laba qaybood, qayb u daynayo operating system-ka, qaybna aad adigu xogtaada gaarka dhiganaysid. Haddaba markaynu sameeyno partition waxaynu dooranaa this PC-ga ayaa right click siinaysaa, kabacdi waxaad dooranaysaa manage. Markaad dooratid ayaynu isla eegaynaa qaybaha soo bixi doona. Tusaale ahaan halkaa waxaa ka soo baxay system tools, storage. Markaa inagu waxaynu kasoo dooranaa qaybta storage-ka, gaar ahaan halkaa disk management ay ku qoran tahay ayaynu right click siinaa. Kabacdi waxay noo soo bixi doonaa qaybihii kala duwanaa ee hard diskigeenu u qaybsanaa. Halkaa qaybtaasi waa C-da, qaybta kalena waa D-da oo aniga ayaa ka jartay. qaybtaana health recovery partition ayaa la dhahaa oo kombiyuutarka ayaa u isticmaala caafimaad ahaan. Haddaba adigu waxaad dooranaysaa qaybta C-da ayaa right click siinaysaa, shrink volume ayaa leedahay. Kabacdi halkaas waxaad gelinaysaa inta MB ee aad goosanaysid. Tusaale ahaan halkii GB wuxuu la mid yahay 1024 ayuu la mid yahay. Markaa 1024 ayaad ku dhufanaysaa, inta aad u baahan tahay ayaad ku dhufanaysaa, inta MB ee aad u baahan tahay ayaad ku dhufanaysaa. Kabacdi okay ayaad siinaysaa. Waxa inoo samaysmay unallocated weeyaan. Markaa si aynu partition jira uga samayno waxaynu dooranaa new simple volume, kabacdi next ayaynu leenahay, kabacdi next ayaynu sii leenahay. halkaa xarafka ama letterka ayaad ka dooranaysaa aad u bixisanaysid. tusaale ahaan G baan doortay. halkaa kusii xigtana waxaad u bixisanaysaa magaca aad rabtid ayaad u bixisanaysaa, kabacdi next ayaad leedahay, kabacdi finish ayaa leedahay. Asxaabta waynu samaysnay partition ayaynu ka goosanay hard diskigeena. Wasalaam.